waxaana wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawow falanqaynta siyaasadda ee arrimaha sirdoonka qodobada maanta waxaa ka mid noqon doona xiisadda cusub ee dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale go'aanka ka soo baxay baarlamaanka dalka ee amarka lagu siiyay safaaradda Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho dowladda federaalk ee Soomaaliya oo jawaab cad ka bixisay daandaasiga dowladda Kenya maxaa ka dhaba in xiriir ay leeyihiin al-shabaab iyo sirdoonka Soomaaliyeed muftiga dowladda Sacuudiga oo go'aan ka soo saaray salaada taraawiixda ee Ramadaanka safiirka dowladda Turkiga oo looga yeeray dalkaasi Ciraaq maxay tahay waxyaabo ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta China oo laba baakadood oo gargaar ah gaarsiisay gudaha wadanka Syria iyo macluumaad kale ayaan ku eegi doonaa barnaamijka maanta wargelin muhiim ah shirkadda Ifio Trading and Public Service waxay xarun kaaga furtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya haddii aad doonaysay maalgelintii dhaqaalaha misana aad raadinaysa xafiiskeeda Muqdisho waxaa lagaaga hirgeliyay wadada shaqaalaha daarta Gaabow shirkadda Ifio Trading and Public Service waxay ku qabanaysaa adeegyo kala duwan iyadoo ku fududeynaysa fiisaha dalxiiska waxbarashada iyo caafimaadka dalka Turkiga waxaa kaloo ay xafiis ku leedahay Turkiga oo ka caawinaya ballamaha caafimaadka helidda deganaanshaha dalka Turkiga iyo adeegyo kale xafiiska magaalada Muqdisho kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda waa 18 bisha Afraad sanadka 2020 u diyaar garow macluumaadkaasi oo dhameystiran gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa kormeer ku tagay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka ayaa ugu dambeyntii socdaalkiisa ku tagay mid ka mid ah isbitaalada Imaaraadka Carabta uu ka hirgeliyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kaasi oo xirnaa 2 sano ee la soo dhaafay Mahad Cabdalla Cawad ayaa waxa uu sheegay in xaruntani xiran ee isbitaalka ah oo Imaaraadka Carabta ay ka hirgeliyeen magaalada Muqdisho inay yaalaan qalab loogu talagalay ama loogu deeqay shacabka Soomaaliyeed dhulkana ay leeyihiin shacab Soomaaliyeed isla markaana Imaaraadka loogu baahan yahay in jawaab degdeg ah ay ka bixiyaan waxa uu sheegay in xiriir ay la sameeyeen safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya isla markaana ay weydiiyeen su'aalo la xiriira sababta isbitaalka uu xiran yahay sidoo kalena waxa uu sheegay in loogu yeeray in si degdeg ah isbitaalkaasi ay dib ugu hirgeliyaan si shacabka Soomaaliyeed loogu adeego ama qalabka yaala ay gaarsiiyaan xarumaha kale ee caafimaad si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed si carale ayuuna hadalkaasi u jeediyay taasi oo muuqata in imika ay abuuri karaysa xiisad kale u dhaxaysa dowladda federaalka iyo Imaaraadka waa kan Mahad Cabdalla Cawad oo arrimahaasi ka hadlaya maanta waxaanu kormeer ku mareynay magaalada Muqdisho gaar ahaan isbitaalada ku yaala waxaan isku daynay oo aan muddo badan isku dayaynay inaan war rasmi ah ka helno isbitaalkii la oran jiray Sheikh Zaid oo aanu ku ogeyn inuu yahay isbitaal leh tayo badan leh oo ay yaalaan qalab maanta loo dhimanayo waxaad ogsoon tihiin in xaaladda dalku ku sugan yahay ay taagan tahay in shacabkii Soomaaliyeed ay halis ugu jiraan cudurkan faafa ee COVID-19 la leeyahay kaas oo waxa weeye neef mareenka gala meeshan aanu joogno maanta oo arkaysaan waa isbitaalkii Sheikh Zaid la dhihi jiray boorkaas ku dhagan gudihiisana waxa ku yaala agab iyo qalab lagu daaweyn karayo 50 qof oo qaba yacni xanuunkan oo dhibta badan leh waxa yaala haamihii baa yaala waxa yaala oxygenkii concentratorka ahaa waxa yaala yacni wax walba oo isbitaal u baahnaa waana xiran yahay 2 sano ayuu xiran yahay waxa weeye ummadda oo Soomaaliyeed ayaana loogu talagalay in loogu adeego waxaan ka weynay safaaradda Imaaraadka ahayd jawaab waafiya waa ka weynay haddaan la xiriirnay usbuuc ka hor baan la xiriirnay xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliyeed waxa mas'uul ka saaran yahay badqabka shacabka Soomaaliyeed isbitaalkan ma xirnaan karo ummadda Soomaaliyeed baa loogu talagalay in loogu adeego waxa weeye waxa meesha yaalla waa deeq oo ummadda Soomaaliyeed loogu deeqay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha uu ugu weyn yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda caafimaadka dhammaan laanta fulinta waxaan ka codsanaynaa in ay jawaab rasmi ah shacabka Soomaaliyeed ee aanu matalo ay ka siiyaan waxa isbitaalkan uu xiran yahay Imaaraadku haddaysan awoodin isbitaalkan inay ka shaqaysiiyaan waxa dhex yaalan ummad Soomaaliyeed baa iska leh dhulkiisana Soomaali baa iska leh mana lagana waxa weeye ma la haysan karayo waxaan qabnaa oo aanu soo jeedinaynaa isbitaalkaas in si degdeg ah lagu furo haddaysan Imaaraadku furayninna dowladda Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadku inay meeshaas ka hawlgashaan doonaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
tani wixii ka dambeeyey markii dowladda federaalk ee Soomaaliya dhaqaale la sheegay in Imaaraadka uu socday ay ku qabatay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International waxaa sii xumaanayay xiriirka u dhexeeya dowladda federaalk iyo Imaaraadka waxaana 2 sano ka hor Imaaraadka Carabta gebi ahaanba uu joojiyay howlgalladii iyo dhaqdhaqaaqyadii uu ka waday gudaha dalka Soomaaliya taasi oo cirka isku sii shareertay markii uu xumaaday xiriirka kala dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya ma jirto ilaa iminka wax jawaab uu ka soo baxay dhanka dowladda Imaaraadka Carabta iyo safiirkoodaba oo Soomaaliya jooga waxyaabaha ka soo kordha macluumaadkeena kale ayaan ku eegi doonaa markana dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa jawaab cad ka bixisay daandaansi kale oo dowladda Kenya ay ku sameysay Soomaaliya iyo sidoo kale warbixin been abuur iyo gafa oo shalay 2 wargeys oo ka soo baxa dalka Kenya ay ka qoreen hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed labadaani wargeys waxa ay daabaceen warbixin ay ku sheegeen in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee xiriir ay la leedahay Al-Shabaab isla markaana sargaal ka tirsan hay'adda uu dhaqaale gaaraya 1.5 milyan oo dollarka Mareykanka uu siiyay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa jawaab cad lagu siiyay daandaansi kale oo dowladda Kenya ay ku wada Soomaaliya dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay aad ugu walaacsan tahay faafinta wararka been abuurka iyo marin habaabinta oo ay ku saabsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo ay daabaceen wargeysyada The Star ee ka soo baxa dalka Kenya iyo The Standard Media oo gudaha dalkaasi Kenya ka soo baxa sidaas ayaa lagu yiri qoraalka dowladda federaalk waxaa intaasi lagu daray inay si xooggan u naqdinayaan weerarada aadka u xun iyo sidoo kale ololaha gafka ah ee lagu beegsanayo dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo hay'adaheeda Kenya ayaan u muuqata mar kale inay daandaansi ay ka bilowday gudaha dalka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeysay ay ku hayso NISA waxaa ka go'an dagaalka ka dhanka Al-Shabaab waxaana ay dambi u aragtaa warka ceebeynta ah ee wareegaya baraha bulshada iyadoo la isku dayayo in sumcadda laga dilay hay'adda sirdoonka Soomaaliyeed dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo wareejinta iyo daabacadda wararka been abuurka ee la xiriira hay'adda sirdoonka sidoo kale waxaan ku baraarujinaynaa shacabka iyo hay'adaha warbaahinta inay muujiyaan go'aan qaadasho wanaagsan ka hor inta aysan sii faafin ama aysan dib u daabicin wararka marin habaabinta ah ee aan la xaqiijin hay-adaha warbaahineed ee dalka Kenya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay daabacaya warar daandaansi ah kuwaas oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliyana xiriirkooda ma wanaagsana tani wixii ka dambeeyay markii ay soo bilaabatay dacwadda dhanka badda ah ee Kenya laga gudbiyay waa hagaag markana muftiga ugu weyn boqortooyada Sacuudi Arabia Sheikh Abdulaziz Al Sheikh ayaa waxa uu sheegay in salaada taraawiixda ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyo Ciidul Fidriga lagu oogi doono guryaha haddii faafitaanka caabuqa coronavirus uu sii socdo waxaana sidaasi warisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa wargeyska Okas ee boqortooyada Sacuudiga salaada taraawiixda Ramadaanka waxaa lagu dukan karaa guriga haddii aan lagu gudan karin masaajidka sabab la xiriira talaabooyinka la qaaday ee lagula dagaalamayo faafitaanka caabuqa coronavirus sidaas ayuu yiri Sheikh Abdulaziz Al Sheikh oo ka jawaabaya su'aal arrintaani laga weydiiyay waxa sidoo kale uu sheegay in salaada Ciidul Fidriga iyana ay la mid tahay sida uu qoray wargeyska bisha Ramadaan ayaa waxay bilaabanaysaa toddobaadkan soo socda boqortooyada Sacuudiga ayaa bartamihii bishii Maarso waxay joojisay 5 salaadood ee maalinlaha iyo salaada Jimcaha in lagu dukado masaajida taasi oo qayb ka dadaalada lagu xadidayo faafitaanka corona waxa sidoo kale ay joojisay umrada iyo booqashadii masjidka nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyada oo la hakiyay dalka galka la siin jiray dadka dibadda ka imaanaya si ay u booqdaan labada xaram boqortooyada Sacuudiga ayaa waxa laga diiwaangeliyay 6380 kees oo cudurka caabuqa COVID-19 iyo dhimashada 83 qof oo la xiriirta caabuqaani dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ciraaq ayaa Khamiistii waxa uu u yeeray safiirka dowladda Turkiga isaga oo kala hadlaya arrimo dhowra waxyaabaha ugu weyn ee ka wada hadleen waxaa ka mid ah howlgallada xukuumadda Ankara ee ka dhanka kooxaha YPG iyo PKK oo dowladda Turkiga ay u aqoonsan tahay inay argagixisan yihiin isla markaana ay ka fulinayaan waqooyiga dalka Ciraaq wakaaladda wararka Anadolu ee dalka Turkiga ayaa sidaasi baahisay mas-uuliyiinta dowladda Ciraaq ayaa waxay sheegeen inay dhankooda ka istaagi doonaan howlgalkaasi oo dowladda Turkiga uu ka wada gudaha dalka Ciraaq sida uu sheegay Fatah Yilmaz oo ah safiirka dowladda Turkiga u fadhiya gudaha dalkaasi isagoo la hadlaya wakaaladda wararka Anadolu ee dalkaani Turkiga kadib kulan ka dhacay magaalada Baghdad ee caasimadda dalka Ciraaq inta kulanka uu socday ayaa waxa uu sheegay in ay ka wada hadleen qatarta ee kooxda PKK ee ku tahay dhanka ammaanka isagoo sheegay in kaliya ammaanka dalka Turkiga aysan qatar ku ahayn sidoo kalena Ciraaq iyo guud ahaan gobolka qatar ay ku yihiin kooxaha PKK howlgalka dowladda Turkiga ee gobolka uu ka wado ayaa waxaa la sheegaa inay qayb ka tahay dadaalada uu ku doonayo inuu ku adkeeyo ammaanka dalkaani Turkiga iyo meelaha ka baxsan
markaana aad waxaa loo hadalhayaa warbixin ku saabsan gargaarka dowladda China ee gaarsiisay dalka Syria. Gargaarkaasi ayaa wuxuu ka koobnaa 2 bokis oo la sheegay in ay yihiin waxyaabaha afka lagu xirto iyo sidoo kale kuwa kale oo loogu talagalay in caabuqa coronavirus looga hortago. Warbaahinta ayaa si aad u hadalhaysa China ayaana gaarsiisay 2 bokis oo ah daawo oo gargaar ah dowladda Syria ay doonayso inay kaga hortagto caabuqa coronavirus maalinnimadii shalay. Warbaahinta qaranka ee dalkaasi Syria ayaana baahisay sawirada. Sidoo kale gargaarkan ayaa qayb ka ah waxyaabaha lagu baaro caabuqa coronavirus. markii diyaaradii ay siday ay tagtay magaalada Dimashq ee caasimadda wadanka Suuriya halkaasi waxaa kaga hortagay mas'uuliyiin dawladda China ka tirsan iyo sidoo kale dawladda Syria waxaana la sheegay in ay ahaayeen kuwa ka hortagayay gargaarkaasi dawladda China ay ugu talagashay Syria. Safiirka dawladda China u jooga magaalada Dimashq ee caasimadda wadanka Suuriya ayaa sheegay tani in ay tahay gargaarkii ugu horeeyay ee qaybta koowaad ee gargaarka oo ay doonayaan inay Syria ay soo gaarsiiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Sawirro goobta laga soo qaadanay waxa ay muujinayeen in dad gadaashooda ay taagnaayeen 2 bokis oo dhexdhexaad ah kuwaas oo gargaar ay ku jireen. guud ahaan falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga intaa qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo qaybta hoose noogu reeb aragtidaada qodobka ku soo jiitay.